Assalaamu calaykum. Soo dhawaada saaxiibayaal. Muuqaalkiina maanta waxaan kula wadaagi doonaa sheeko yar oo aan weligaa ilaabi doonin. Waa sheeko yar oo aad cajiib u ah. Sheekadan waxa ay dhex mari doontaa gabar, aabaheed iyo nin ay gabadhu jecleed. Haddaba saaxiibayaal, maalin maalmaha ka mid ah ayaa gabadhii ayadoo la joogto aabaheed oo buugaag iibin jiray ayaa waxa u yimid wiilkii ay jecleed. Gabadhii waxa ay ku tiri wiilkii markuu u imaaday, waxaad u timid inaad qaadato buugga ciwaankiisu yahay Aabahay waa ila joogaa oo qoray qoraaga Jarmalka ah. Wiilkii wuxuu ku jawaabay maya, waxaan u imid inaan qaato buugga ciwaankiisu yahay Xagee baan kugu arkaa oo qoray qoraaga Ingiriiska ah. Gabadhii waxa ay tiri buuggaas ma hayno, balse waxa aad qaadan kartaa buugga ciwaankiisu yahay Harka geedka cambaha oo qoray qoraaga Mareykanka ah. Ninkii wuxuu ku jawaabay haye, laakiin ma ii keeni kartaa buugga ciwaankiisu yahay waan ku soo wici doonaa 5 daqiiqo kadib oo qoray qoraaga Belgiumka ah. Gabadhii waxa ay ku tiri waa hagaag, laakiin adigana ha ilaawin inaad ii keento buugga ciwaankiisu yahay Weligii kuma qiyaami doono oo qoray qoraaga Faransiiska ah. Markii uu ninkii baxay, aabihii waxa uu yiri gabadhiidii miyuu akhri doonaa dhammaantood buugaagtaas. Gabadhii waxa ay tiri haa aabe, waa arday aqli badan oo aad wax u akhriyo. Aabihii waa uu qoslay oo uu ku yiri haye, waan fahmay, laakiin anigu waxaan idin hayaa 2 buug oo aan jeclaan lahaa inaad labadiinba aad akhristaan. Waxa uu ku yiri saaxiibka u dhiib buugga ciwaankiisu oo yahay ma ahan doqon, wuu fahmay wax walba oo uu qoray qoraaga Hollandiiska ah. Adiguna gabadheedii buugga aad u baahan tahay ciwaankiisu waa diyaar u noqo inaad guursato in adeerka bari oo uu qoray qoraaga Ruushka ah. Haddaba saaxiibayaal, maxaad ka fahantay sheekadan? Horase ma u maqasho sheekadan? Ugu dambeystii halkaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa muuqaalkiina maanta. Hadday tahay markaad kugu horeysay, fadlan nagu soo biir oo ka mid noqo asxaabta nagu har si aysan ku dhaafin barnaamijyada aan halkan ku soo baahino. Assalaamu calaykum waraxmatullaah.